Waxaa ka sii daraysa xaaladda dalka Itoobiya oo halis ugu jirta burbur kadib markii uu xogeystay dagaalka u dhexeeya xoogagga Tigray oo ku soo dhowaanaya Addis Ababa iyo ciidamada federaalka Itoobiya. Cabsi weyn ayaa ka jirta Addis Ababa kadib markii ay ku soo dhowaadeen ciidamada TPLF oo u soo jirsaday wax ka yar 400 kiiloomitir, waxayna dowladaha reer galbeedka qaarkood ugu baaqeen muwaadiniintooda inay u diyaargaroobaan ka bixitaanka Addis Ababa. Xoogagga Tigray ee la dagaalamaya dowladda Itoobiya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin gelitaanka caasimadda Addis Ababa, walow aysan dooneyn inay xukunka la wareegaan. Afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa sheegay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay xasuuqa ka dhanka shacabka Tigreega oo uu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Waxa kale oo uu ku daray, dan gaar ah kama lihin inaan galno caasimadda si aan xukunka ula wareegno, naguna jiro damac dhul ballaarsi ah. Ujeedka kaliya ee aan leenahay ayaa ah inaan xaqiijino in Abiy Ahmed uusan khatar ku sii ahaan doonin shacabkeenu. Haddii ujeedkaasi aanu ku gaari karno gelitaanka caasimadda Addis Ababa, waanu geli doonaa, ayuu yiri afhayeenka TPLF. Halka dhanka kale dowladda Itoobiya ay wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto xoogagga fallaagada Tigreega, inkastoo ay sii kordhayaan baaqyada caalamiga ee uga imaanaya xabad joojinta in la sameeyo. Sidoo kale, wadamada Afrika, Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa ku celceliyay baaqyada ku aadan xabad joojin iyo wada hadallo in lagu soo afjaro colaadda ka taagan dalka Itoobiya. Waxaa Itoobiya booqasho ku jooga ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ee lagu magacaabo Jeffrey Feltman, kaasoo ku dadaalaya in wada hadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan dalka Itoobiya. Daawade, haddii aad jeceshahay inaad wararkeena warkixiga aad daawatid ama xaaladda ku cusub dalka Itoobiya, fadlan subscribe.